السلام عليكم. عشرك waxaan noqon doonaa casharkii labaad ee aynu ka qaadan doonaa cashar ku saabsan Adobe After Effects. Waxaanu kaga hadli doonaa qaabkaad u sameyn karto sidan oo kale ama textigaaga ugu bedeli karto shaybahan una isticmaali karto properties uu lahaa shape. Sidoo kale waxaan dhigan doonaa qaybka shape-kaaga ugu dari karto zigzag. Nala dhamayso muuqaalka oo follow subscribe like na saar. Saynu hore soo sheegnay ama saynu inta ku soo sheegnay waxaanu qaadanaynaa qaabka aad u sameyn karto textigaaga shape ugu bedeli karto. Sadarta waxaan oranaa marka waa new composition marka niraahno waxaan ula baxaynaa tusaale ahaan text to shape oo kale inta saasaynu ula baxnay okay baan niri detailka kalena uu noo dhameystiran yahay. Waxaanu sameysanay composition-kii waxa xigtayna soo gashana solid halkan right click siinayna kabacdi new item kabacdina solid baan niri si uu background ahaan inoogu noqdo inuu qurxiyo meesha. Waxaan la baxnay bg kabacdi midabkiisa waxaan ka yara dhiganay hadan doono blue ama waxaan ka dhiganaynaba blue baan ka dhiganay midab yar adigu habba midabka aad jeceshahay ama midabka quruxda badan ee aad ka helayso ka gasho anu midabkan aan galiyay waxaan soo qaatay tape toolkayga kabacdi tape toolkayga markaan soo qaatay halka waxaan ku qoranayaa text to shape control A baan idhi maadaama yar tahay si aynu bedbedelo waxaan u baahanahay character-ka haddii ay lacag la xiran tahay window-ga tagaysaa waxaad sax soo saaraysaa character soo weynee textiga kabacdina waxaan u baahanahay align si aynu centerka u dhigno window-ga kaalay waxaad sax soo saartaa align haddii ka xiran tahay centerka inoo dhig textigeena character-ka kaalay inoo soo yara weynee sidoo kale wada capital ka dhig wada capital markaan ka dhigno fartana far fiican oo aad ka helayso kale ka dhigo tan waxaan ku daray iminka roboto haddaba waxaanu sameynaa iminka inaynu hoos u degno oo align-kii soo furano aynu centerka ku beegno waxa xigtay inaynu u bedelo haddaba shape sidaad shape ugu bedesho textigaaga doorani kabacdi waxaad sameynaysaa iminka saad arkayso halkaa t baa taala waxay ku sheegaysaa inay text tahay right click c waxaad tiraahdaa create shapes from text qaabkaas iminka maxaad arkaysaa in textigaagii star la siiyey startuna waxay sheegtaa inuu sheegani shape yahay dad gudaha u sii gasho waxay leedahay add button soo kale content display leedo gudaha daw si gasho waxaad arkaysaa xaraf kasta in gaar loo saaray waka hadaba imika waxaan eeginaa tan inoo delete garee waxaan eeginaa bal inaynu animate gareyno oo si yar qurux badan oo kale text to gestro gareynayso inaan ka dhigno samida uga dhigno textigeena inoo door kabacdi waxa timaada character-ka midabka halka yar ku dhufo kala wareeji si stroke looga dhigo stroke lambarkiisu hadduu ka yar yahay qaybta waxaad ka dhigataa 3 oo kale iga dhig okay maxaad arkaysaa iminka textigaygu waa to shape oo stroke shape igu bedel right click kabacdi create text shapes from text sug haddii aad doonayso course-kan oo faahfaahsan waxaad u heli karaysaa qaab online adigoo ku dhiganaya website-kayga tixi.com sidoo kale waxaad ku heli karaysaa qaab offline oo haddii aad Hargeysa joogto aad noogu iman karto classes-ka aad halka ku dhiganayso ka faa'iideyso inagu celiya muuqaalka inta markaan sameeyo haddii gudaha u galo gudaha markaan imaadaan idhaahdo add markaan idhaahdo waxaad ku dartaa trim path baan kusoo daray halka ugu hooseysa la dhigayaayo xarfihi baa la kala saarsaaraya halkaa kabacdi waxaan imanayaa ugu hooseysa muuqaalkayga maxaad arkaysaa iminka in textigii stroke gareynayso haddaday saynu taa u animate gareyno waxaan imanaynaa halka ugu horeysa marka ugu horeysa waxay noo ahayd halkani 100 bay noo tahay maadaamay 100 tahay eber baynu u bedelaynaa eber markaynu u bedelo keyframe baynu endiga dhigaynaa waxaan u dhaqaaqaynaa hore 10 ilaa waxaan dhaqaaqaynaa 15 frame halkan inoo soo qaad keenan ilahan oo kale inoo keen halkan time kuna ay kala soconaa 19 weeyaan imika 19 ka bay inoogu daa ama halkan waxaad inoogu qortaaba 15 inoogu qor bes 15 bay joognaa waxaan ka dhiganaa 100 play dynamic wakuka halkaas aad ka sii wadi karaysaa inaad textigaaga baalka u bedelato qaybta labaad casharkeena waxay ahayd marka hore kanaynu iska xidhnay marka qaybta labaad casharkeena waxay ahayd in shape aan u bedelo zigzag shape-keena soo dooraneynaa kabacdi shape-kii baynu draw gareyneynaa shape-ka markaan draw gareyno wuxuu leeyahay midabkiisu waa stroke waa midab daw eeg background-kii sadarteed horta midabkiisana stroke-ga waxaad inooga dhigtaa cadaan oo kale sidoo kale waxaad inooga dhigtaa eber inooga dhig okay wuu naga wada qarsoomay waxaad soo doorataa filka kabacdi filka cadaan inooga dhig cadaan markaan ka dhigano
iminka maxaad arkaysaa inuu shape-kii inoo furmay. shape-ka markuu saan kale kuugu furmo aad shape-kaaga dhimani sidaad zigzag ugu darto kabacdi laba meelood baad kaga dari kartaa, halkan aad tiraahdo iyo halkan hoosoo tiraahdo add, kabacdina aad tiraahdo zigzag. saad arkayso waxaa lagu daray zigzag-gii. waanad badin karaysaa waanad yareyn kartaa. size-kiisu waa ka wad badisay waanad yareyn karaysaa. soo kale waxaad badin kartaa ayo meesha ku jirta maarta dhibcahan yar yar ayaad badin kartaa ama reaches-ka lagu sameynayo. waan badiyay iminka haddaan halkan idhaahdona waan yareeyay waka. marka waxaan ka dhiganaa halkan 10 bay noo ahayd 10 ku daa, halkan sidoo kale in yar iyadana si uu si qurux badan noqdo. wakuka textigaagi saad u qurxin karto oo shape ugu bedeli karto, halkan waa saad u isticmaali karto shape-ka oo zigzag uga dhigi karto. aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay sida wacan aad u soo daawatay muuqaalkan. fadlan haddaan qaban shaqadii waanad follow gareyn like saarin iminka qabo mahadsan tahay.